وإني حقيقيان إني caasimada kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland Kismaayo ayaa waxa maanta lagu soo gabagabeeyay kulan dood wadaag ah oo la xiriiray sidii xal waara loogu heli lahaa ciribtirka gudniinka gabdhaha. barnaamijkan oo ay horkacisay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo kaashanaysa hay'adda SWSC ayaa xubnihii ka qayb galay waxa ay la fagureen baahida loo qabo daadajinta shuruucda xakamaynayo gudniinka maadaama horey la tashiyo badan looga sameeyay haddana la filayo in loo gudbiyo golaha wasiirada si ay u meelmariyaan isla markaana uu u dhaqan galo kadib markuu saxiixo madaxweynaha. intii ay falanqaynta socotay kaalinta haweenka dhalinyarada iyo xarumaha dawladda ayaa loo arkay inay door weyn ka geysan karaan wacyigelinta bulshada ee arrimahan. وهذه لا شقية واي waxay ku leeyihiin gabdhihii ayaga dhalay marka la gudaayana gudniinka fircooniga wax iska jahanimo ahaa ayaga ku sameyn jiray ayagoo badan laga baqayo raggii markii gabadha fircoon sunno loo gudo ee raggii leeyihiin gabadha way halaysan tahay aba gabadha ma hagaagsan arrintaas waa arrin weyn oo koosgaraynaysa waaridkii gabadhii isaanta iyadoo baqaysa markii waxay sameynaysaa gabadheedu waxay ka dhigaysaa fircooni ayadoona sunnadii oo macnaha oo dareemaysa inuu sunnadu xalaal tahay ragga in aad iyo aad dhalinyaro loogu jahil bixiyo waa loo baahan yahay waxaan dareemi karnaa horta dhalinyarada in ay wax alaala iyo wixii wadanka ka dhacaya ama dadka loo qabanayo inay door ku leeyihiin kow ama laba waa doorka ugu weyn ay ugu balaaran dhalinyarada iska leh waxyaabaha loo arkayo dhibaatada sida gudniinkan fircooniga ah in badan inay ka hadlaan qofka dhalinyarada ah wuxuu leeyahay reer buu ka soo kacaa waalid uu leeyahay sidoo kale qaraabo iyo daris iyo ehel uu leeyahay wuxuu sameyn karaa in xaafadihii uu kula laabto oo wacyigelin ka sameeyo shakhsiyan uu sameyn karaa guriyaha intuu tago oo kala hadlo waxyaabaha noocaan oo kaleeto iyo intaa in ka badanba way leeyihiin marka dhalinyarada door muhiim ay ku leeyihiin barnaamijkaas inay ka qayb qaataan ka wasaaradda ahaan haddaan fikirka ka dhiibto ama dawladda roolka ay ku leedahay waxa hadda la qorayo horta waa hindis sharciyeed wuxuu u baahanayaa inuu maro processka qaybtiisa ugu horeysay qaybtiisa ugu dhaxeysay waxaan filayaa inuu soo maray hadda wada tashigan uu yahay wada tashiga gabagabada marayo inkastoo uusan ahayn midka ugu dambeeyo hadduu dhameystirmo in macnaha sida uu dhaqangali lahay oo macnaha aan ku dadaalno iyo waxa qodobyada meesha ugu qoranna sida macnaha aysan wax qas u ka dhicin sida meesha tahay qofka dhibka geystay lagu xukmiyo sidoo kale inta waxa roolka aan ku leenahay waxay tahay mar walba inaan ka wacyi gelino sida ay ugu qayb qaadan lahaayeen dhammaan bulshada dawargoynta ama ka hortagga gudniinka fircooniga iyo dhibaatooyinka dhammaan ku dhaca dumarka. Sacdiye Cabdullaahi Jeyte isku xiraha hay'adda iyo bulshada ayaa xiritaanka madasha ka sheekaysay xilligii uu soo bilaabmay sharcigan qabyo qoraalka iyo hadda halka uu marayo. waxaan soo wadnay barnaamijkan FGM ka amaan u qabanay doodo badan waxaan ka diyaarinay fadwooyinkii waxay soo socdaan hadda waxaan mareynaa sharciyeyntii iyo maaragtay xulashadii dadkii sidii maaragtay u sameyn lahaayeen ama qodobo looga soo saari lahaa asaasi qodobadaas soo noqdo kuwa waxgal ah ama fadwadii sharciyadeedii lagu sii fariisiin lahaa. dadaalka loogu jiro ka dhaadhicinta halista fircooniga ayay sheegtay inuu bulshada wax badan ka bedelay walow ay jirto qaar wali ku adkaysanaya inaan dadkii ka dhaadhacsiino FGM ka ama fircooniga inuusan wax fiican ahayn dadkii way qaateen walow ay si fiican u suulin laakiin hadda sidii hore way ka fiican yihiin fadwadani hadda aan wadna ay soo gudubtay fadwada hadda mareyso sharciyeentanu waxaan filayaa inay kaalin weyn ka qaadan doonto in dadkii markii la soo saaro busays ama sharci xadadayo habartii lagu arko inay gabadheeda ku sameyso ama islaantii sameynayso waxaan filayaa waa in haddana daadajintiisa shacabkii loo sheegay inuu sharci ka soo baxay kadibna si wada jira oo u ciribtirmo ama u baaba'o FGM ka ama gudniinka fircooniga.
Sacdiyo ayaa intaasi ku dartay inay markii hore dhib ahayd in dadka wax guda lagala taliyo balse wacyigelinno isdaba joog ah kadib maanta ay sidaasi ka duwan tahay. hadda waxaad dareemi kartaa haddii aad ugu tagtid haweenkii oo sameynayso inaad wacyigelin u samaysid ama aad ula kaashatid culumadii tiraahdid waxaan diinta islaamka ma qabto ha ku xadgudbina gabdhaha sidan ha yeelina inaad tiraahdid aad xaq hadda u leedahay laakiin mar haddii sharciyo soo baxo qof walbo xukunkaas ayaa qabanayo oo maaragtay ma ahan wax la barayo xukunka un baa la marinayaa oo la isku wada waafaqay waxaan rajaynayaa sidii hore inay ka duunaato. Tallaabada tan xigta ayaa sharcigan qabyo qoraalka ah waxaa la horgeyn doonaa xukuumadda iyagoo ka doodi doona haddii uu fulana waxa uu qaban doonaa cid kasta oo ubadka falkan kula kacda. Cabdulaahi Xuseen Kilas, telefishinka caalamiga Ariel, Kismaayo.